والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. marka hore waa ku mahadcelinaya maxamed salaad goobjoog TV aad iyo aad u mahadsan tahay fursadan aad siisay walaal sida la socoto dawladda ama xukuumadda Rajaal Cali Khayre tii warkeeda ama waxyaabaha laga sugaya waxa ku jira wadankeena hal doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso 2020 ayagoo taaka amba qaadayaan ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay diyaarisay sharci doorashooyinka lagu maamuli lahaa ay diyaarisay golaha wasiirada ayaa la soo mariyay kadibna waxaa la keenay baarlamaanka akhrintii koowaad baa la mariyay akhrintii koowaad markii la mariyay guddiga baarlamaanka guddoonka baarlamaanka waxay isla qaateen in loo sameeyo guddi ku meel gaar ah ad hoc oo sharcigan ka soo shaqeeya inta sharciyeedkan doorashooyinka qaranka ka soo shaqeeya loo saaray guddiga waa 15 xubnood waa isdoorteen gudoomiye iyo ku-xigeen iyo xogeeye guddiga marka si hawsha loo igmaday ma qaado wuxuu samaystay workplan ama qorshe howleed ayuu samaystay qorshe howleedkaas oo u qaybsamay 3 qaybood qaybta koowaad oo ah inuu dhageysto dadka stakeholderska loo yaqaano ama ku xiran doorashooyinka oo daneeya ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka axsaabta siyaasadda dumarka qaybooda kala duwan kuwa baarlamaanka ku jira iyo kuwa u ololeeya xuquuqdooda dhalinyarada iyo hay-adaha daneeya ama loo yaqaano research analystayaasha sida heritage iyo kuwa lamidka ah waxyaabahaasoo idil guddigu waa uu arkay waana uu dhageystay ayagoo axsaabta siyaasaddana 2 mar uu arkay qolo walbaba wixii ay sharcigan ka qabto ayuu dhageysanayay kadib qaybta labaad waa maamul goboleedyada inay guddiga aadaan maamulka Hirshabelle waa noo soo maamul goboleedka koonfur galbeed waa noo soo ruuday inaan soo dhageysano leadershipkooda iyo bulshada rayidka iyo odayaashooda maamul goboleedyada kalena oo ku soconaa inaan tagno kadib markaan helno waxa wararkaas ayaanu sharciga daraaf gareyn doonaa ama aan fiirino sharciga asaga ayaa lagu shaqeynayaa oo sharci banaanka laga keenayo ma jiraan sharciga 3 qaybood oo weyn ayuu qaybsan yahay qayb waxa weeye qayb sharci ah oo dastuurka iyo waxa loo eegayo qaybna waxa modelka ee doorashada noqonayso qaybna waxa waxyaabo farsamo ah oo guddiga doorashooyinka markay doorashada la qabanayo sida loo qabanayo sida loo tirinayo guddiga doorashooyinka madax bannaan quseeya 3daas qaybood ayaan leen u fiirin doonaa kadib ayaan habeyn doonaa annaga shaqadeena waxay tahay inaan baarlamaanka horkeeno kadib baarlamaanka akhrintiisa 2 iyo 3 la mariyo haddii uu ka gudbanayo aqalka sare loo gudbiyo kadib madaxweynaha saxiixo kadib loo dhiibo guddiga doorashooyinka si doorashooyinka u qabtaan marka waa warbixinta guud waa inahaas marka waraaqahan oo ama bariyahan shalay iyo maanta social media dhexmarayay waxway wax annaga naga soo baxayna ma aha waxaan ognahayna ma aha wax annaga stage-koodii aan gaarnay ama wax tii arkeena ku jira wata ma aha oo shaqada annaga loo igmaday waxaas kuma jiraanba shaqada loo igmaday waxa weeye in sharcigan aan dib u eegis ku sameeyno oo fiirino oo keenno maxaa la dhahay baarlamaanka keenno weey waxyaabo oo u baahan heshiis siyaasadeed oo qoran doorashada dib loo dhigay waa la soo hormarinayaa waqti waa lagu dareeyay wax shaqo annaga u dhigay u taala ma baahaba shaqo aan ka shaqeynayno ma dadka inay soo ogaadaan ayaa loo baahan yahay sida ku sheegay waxa weeye annaga dhageysin ku jirnaa dadka aan la kulmayno 90% ayaga dhageysanaa oo dhageysanaa oranaa si ay la sharcigan soo akhriya qoradan akhrinayna waa u akhrinaa waa dhageysanaa laakiin wax hadda anaga isku soo qaadnay oo inaan wali ma dhawo shaqadaas fahamtay shaqada sharciga la fiiriyo oo dadka input-koodii la geliyo iyo waxay noo sheegeen wali laba gaarin waqti waa ka dhiman howlahaas waxaan isku soo hadal qaadnay ama wax xildhibaanka dee waxaas isaga daneynaya ama waxaa la rabaa inuu magaciisa si waa nin la yaqaano moogtahay wuxuu qoraya inuu magaciisa ku qoro meesha ku keenani musanad oo u yeelo laakiin inta qol isku soo xiro warqad la iska qoro ama Twitter lagu qoro hadii baalki maxaa la dhahay wax sax ma aha wax la rabo waaye in xasiloonida siyaasadda jirta lagu jahwareeriyo wax la rabo waaye guddiga in shaqada loo igmaday shaqo aan ahayn dusha laga saaro annaga guddiga baarlamaanka wuxuu leeyahay web page uu leeyahay oo wixii guddiga uu qabto ama baarlamaanka qabto lagu faafiyo annaga Twitter waxaan leenahay guddiga u gaara oo wixii aan qabano
iyo wixii ra'yigeena meelahaas ayaa laga xigan karaa waxa guddiga rasmi ah ee ka soo baxay laakiin wuxuu rumeera ah oo dadka iska qabaan haddii guddiga looma nisbayn karo dushan lagama saari karo hawshan dhegeysiga markay soo dhamaato dabcan magolaad kuwa soo noqonaysaan mise riboodka soo saartan ayaa final noqonaya wax ribooda la soo saaray horta ma jiraan in aad loo fahmaa la rabaa ribood ma jiro sharciga ayaa laga shaqaynayaa baarlamaanka guddiyuu leeyahay 14 guddi sharci walba oo xukuumadda ka yimaado guddiga xusaysaa loo gudbiyaa anaga waxaa ka tirsanaa guddiga khayraadka waxba laba sharci baan baarlamaanka geynay waxaan geynay sharciga biyaha geynay waa marinay sharciga batroolka geynay waa marinay macnaha guddiga waxaa wixii ka soo gudbay wasaaradda ayuu leen u fiirinayaa mar wuxuu sharciga horta dastuurku ayuu ku fiirinayaa shuruucda waddanku ku fiirinayaa waxyaabihii kale caalamka jira ku fiirinayaa marka waa waxba kama duwana marka kii mahalka laakiin maadaama doorashada ay tahay wax aad u weyn oo dadka badan ay sugayaan oo Soomaaliya ay sugayso international community sugayo dadka badan ay sugayaan ayaa guddigan gaarka loo sameeyay guddigan wali waxa laga qaaday fasaxii labada bilood ay geli lahaayeen waxa loo sheegay in labada bilood amar lagu siiyay labada bilood ay ku soo dhameeyaan baarlamaanka marka la furo ay keenaan macnaha shuruudii baarlamaanka la keenayay oo idinka dhameeyay iman jirteen wax uu kaga duwan yahay ma jirto oo wax annaga naloo xil saaray inaan rabood soo qorno ma aha sharciga ka shaqeynayna dadka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa in waxaas ay yihiin warar kuteena oo aniga waxaan u qaatay qof qol intuu galay iska soo qoray oo meelaha ku faafiyay magaciisa ta kuma qorna wax guddiga ka soo baxay ma aha waxay ogyihiin ma aha TR-kooda ama shaqadoodana kuma jirto waxaas hadda la qorayo waa waqtiga lagu darayaa iyo waxba lagu darayaa waxay u baahan tahay political agreement heshiis siyaasadeed ay u baahan tahay oo madaxtooyada ra'iisul wasaaraha baarlamaanka labadiisa aqal maamul goboleedyada dadka daneeya bahalkii maxalla Soomaaliya dowladda waxaas oo dhan waa inay ka heshiiyaan haddii muddo kororsi imaanayso laakiin wax annaga shaqo annaga gaar noogu taalo ma aha warkaasna waa been wax ka jirana ma laha saasaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka daneeya arrimaha doorashooyinka ama arrimaha Soomaaliya daneeya ha ahaadaan maamul goboleedyada ha ahaadaan international community arrintaas u sheeg warqadaas wax naga soo baxay ma aha waxaan ku fikirnay ma aha wax la isku soo qaaday ma aha waa un dad oo laga yaabo inay dana kale oo gaar leeyihiin ayaa wada haddii suuqay ku tijaabinayeen aniga nagu tijaabinayeen annagana haddii runtaan dadka u sheegaynaa